waxaad og tahay inaan ku jeclahay, balse isma aadan weydiin sababta aan kuu jeclahay. taasina waa sababta aad mar walba u sababsato dhaawaca wadnahayga. waxaan isku dayay marar badan inaan ku dhaho, iga daa dhaawaca aad ii geysanayso, waan damqanayaaye, balse mar kastaba waxaan xasuusan jiray inaan si dhab ah kuu jeclahay. dadka qofkaad isbarataan waad u dabeecad wacan tahay, balse aniga oo agtaada farxad ka soo doonta waad igu dabeecad xun tahay. maxaan kaa galabsaday? ma jaceylka aan kuu qaaday baa qalad ah? ma adaan u qalmin jaceylka aan kuu qabo? si kasta iigu dabeecad xumow ama ii karahso mar kasta oo aad i aragto, balse maskaxdaada ku hay inaan si kastood iigu tahay aan aniga kugu jeclahay. farxaddaada waan rabaa, inaad aadmiga u saraysana sidoo kale, inaad nolol qurxoon heshana sidoo kale, eebbana waan kaaga rajaynayaa middaas. waxaan kuu jeclaaday inaan kaa helo nolol farxad leh, inaad ii noqoto qofkan ku taami jiray, inaan si wadajir ah u noqonno laba lagu daydo, inaan ku waarno nolol lagu waaro middeeda u wacan. nasiib darose ma lihid indho rumayn karo riyadaas cuddoon. waxaanse rajaynayaa inaad yeelan doonto riyadaas, aadna rumayn doonto idamka Eebbe.